fadlan subscribe saar hana ilaawin inaad gambaleelka furato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxay idin wadaagi doonaa 8 calaamadood oo lagu garan karo inay haweeneydu ay uur leedahay. lambarka koowaad, isbedel maskaxeed. mar waliba isbedel maskaxeed waa uu yimaadaa haddii ay haweeneydu uur yeelato, laakiin isbedelada waa ay ku kala duwan yihiin. haweenka qaar ayaa dareema walwal, qaar kale ayaa dareema buuq, qaarka halka kale ay dareemaan xaaladooyin u adag. lambarka labaad, kaadi badan. kadib uurka waxaa dhaco isbedelo hormoonada jirka ah. isbedelada waxay kordhiyaan qulqulka dhiigga ee kelyaha, sidaasna waxaa ku bata in kaadi badan la saaro. lambarka saddexaad, labalabo ama molac wax la yiraahdo. calaamadan waxay bilaabataa kadib 2 isbuuc ee uurka, waxayna joogsataa kadib 3 bil ee hore, waxayna haweeneydu dareentaa labalabo aan lahayn matag. lambarka afraad, dhiig ama xanuun gumarka. dumarku xilliga uurka ay qaadaan, gaar ahaan 14 maalmood u hor, waxay dareemaan dhiig ka yimaada xubinta taranka, kaa oo dhaca marka shahwada ragga ka gudubto ugxaanta ay bacriminayso. lambarka shanaad, madax xanuun. mar waliba uu uur jiro, waxaa kor loo qaadaa qulqulka dhiigga ee jirka, waxaana isbedela hormoonada jirka, sidaasna waxaa ku dhaca madax xanuun soo laalaabta. lambarka lixaad, daal. xilliga uurka waxaa ku bata haweenka daalka ayagoo aanan qabnin wax hol ah. lama garanayo si dhabta wax sawa, laakiin waxaa loo badinaya inay tahay badashada hormoonka progesterone-ka, kaa oo u fududeeya inay haweeneydu hurdo ama daal dareento. lambarka toddobaad, kor u kaca heerkulka jirka. marka ay dhacdo bacriminta ugxanta, waxaa kor u kaca heerkulka jirka, wuxuuna calaamad u yahay uur haddii uu in ka badan 2 isbuuc sii jiro. lambarka sideedaad, xanuun naasaha ama barar. haweenku qaar waa u caado inay xaaldan ku timaado, waxaana sababa bararka naasaha kororka hormoonada dareenwadayaasha ah. bararku waa uu degaa 3 bil kadib.